Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan. Ku soo dhawaada musalsalkii qof oo lunsaday caashiqa. Xalqadii maanta ee cusbeed 283. Fadlan kanaalkeena Filimsida Media haddii aad ku cusubtihiin subscribe saarta gambaleelkan ha iloobina si wararka degdeg idinkugu soo dhacaan. Muuqaalkan haddii aad share dhihi kartaan isku day inaad share dhahdaan, sidoo kale tana muuqaalka like inoogu badiyo maasantiin sida wada dhantiin. Waxaan gudagalaynaa falanqaynta xalqadda waxay ka bilaabanaysaa odayninaad oo la hadlayo Samrad. Su'aal buuna weydiinayay, waxuu dhahaya Samradow, ma waxay kula tahay Firaad iyo Baaqi inuu hadeer xiriir ka dhexeeyo? Ma sidaas ayay kula tahay ayuu dhahaya. Kahor intuusan Samrad jawaabin, waxaa hadalka qaadanaysa Bafani. Waxay dhahaysaa Firaad iyo Baaqi hadeer waxba kama dhexeeyo, xiriirkoodana wuxuu ahaa mid hore oo hadeer laga soo gudbay. Sidaas awgeed Baaqi kuma dhiiran karto, mana ku dhiiranayso inay burburiso qoyskeeda, gaar ahaan iyadii Samrad inay kala tagaan iyada sabab uma noqonayso hadeer la joogo. Laakiin xiriirka iyadii Firaad mar hore ayuu ahaa waana laga soo gudbay. Sonali ayaa hadalka qaadanaysa, waxay dhahaysaa muddadii halkii sano u dambeysay say waxay mar walba ku dhiiran jirtay inay aflagadiisa Baaqi. Mar walba oo laisku soo hadal qaado arrimaha Firaad, say waxay aflagadiin jirtay Baaqi. Anagana midaas ayayna marqaati ka ahayn. Samrad wuxuu dhahayaa gurigan qof say fahmay maba joogo, sababtoo ah say aniga isku xanuun ayaa nahay. Dhibkii aniga aan soo maray ayay hadeer say maraysaa. Sidaas awgeed aniga kaliya ayaa fahmi kara say, idinka ma fahmi kartaan. Omkar wuxuu dhahayaa Samradow, waxaad ogaataa arrin adiga iyo Baaqi idinka dhexaysa awgeed inaad qoyskaada uga tagtid oo dib u noqotid. Arrinkaasi aniga aad iyo aad baan uga xumahay, iyo waxaan kuula talinayaa inaadan gurigan ka tegin, waliba sabab la xiriirta adiga iyo Baaqi isfaham dari idinka dhexayso, ama arrin adiga iyo Baaqi idin gaar ah inaad guriga uga tagtid. Kulama talinayo aniga ayuu dhahaya Omkar. Bafani waxay dhahaysaa haddii Samrad iyo Firaad ay gurigan ka tagaan, dhab ahaantii gurigan qabyo ayuu noqonayaa, qoyskanna inuu burburo ayuu qarka u saarnaan doonaa. Oo haddii labadan wiil aysan joogin, waxayna ka wadaa in Samrad uu baxayo sida uu sheegay, kuna laabanayo xeryihii agoonta iyo caruurtii uu waqtiga wacan la qaadanayay. Sidoo kale tana dhanka Firaad waxay kala jeedaa, maadaama Firaad uu yiri aniga waan baxayaa oo markaasi bedel ayaan laygu sameeyay dhanka ciidanka, magaaladan oo dhan ayaa layga bedelay. Marka waxay kala wadaa labadan wiil hadday baxaan, qoyska maxaa u dambeynaya soo hogaaminaya oo rag ah oo guriga jooga, odayaal unbaa jooganay ka wadaa. Markay sidaas dhahdo, Samrad wuxuu dhahayaa aniga uma maleynayo Firaad inuu shaqo awgeed loo bedelay, waxay ila tahay inuu aniga iga cararayo uuna diidan yahay inuu aniga waji ka waji iga hor imaado. Sidaas awgeed uu aniga iga dhuumanayo, bedelkana uu isaga samaystay si ku talagal ah. Markaas ayuu Omkar dhahaya miyaad waalatay Samradow, Firaad wuu ku jecel yahay waana walaalka. Wax badan ayuu ku riyoonayay soo laabashadaada. Hadeer markaad soo laabatay miyuu isaga baxaya, weliba adiga dartaada? Suurtagal ma ahan midaas ayuu dhahaya Omkar. Samrad wuxuu dhahayaa hadeer xiriirkii hore nagama dhexeeya anigii Firaad, sidii hore isuguma fiicnin. Markaasuu odayninaad oo Firaad aabiis dhahaya wiilkaygiiyo sidaas inaad u fikirtid looma baahna, sidaas dhihin ayuu dhahaya. Waxaa imaanaysa Mansi, Samrad hooyadiisii. Waxay leedahay wiilkaygiiyo maantoo dhan ayaanba ku baadigoobayay, inta miyaad joogtay? Waxaan ku weydiiyey Baaqi ma la hadashay? Arrinkii furiinka iyo wax walba noloshiina ku saabsan ma kala hadashay? Samrad wuxuu dhahayaa Baaqi aniga waan wada hadalnay, go-aankeedana wuu caddaa, sidoo kale tan go-aankeeda way ku adkeed. Sidaas awgeed anigana runtan u sheego waxaan dhahay furiinkani kadib xitaa gurigan waad sii joogi kartaa,
maadaama qoyskan in muddo aad la nooleed way ku barteen adigana waad la qabsatay. Marka haddii aan adiga isfurno, gurigan waad kusii noolaan kartaa, qoyskanna waa lasii joogi kartaa adigoo waliba noloshaada cadigaa sii wadan karo. laakiin qofka baxayo waa aniga, qofka baxayo halkan ka tagaya oo nolol cusub sii anba qaaday, noloshiisii hore ku laabanayo waa aniga gurigan ka tagaya ee adiga looma baahan inaad ka tagtid ayaan dhahay. dabcan hadalkayga way yeeli doontaa, gurigana way sii joogaysaa, midaas waxba ka walwalina ayuu dhahaya. Manse waxay leedahay hadalkaada macnihiisu wuxuu yahay in adigii baaqi aad go'aansateen inaad kala tagtaan ood isfurtaan. Samradu wuxuu dhahayaa aniga iyo idinkaba baaqi kuma qasbi karno inay xaaskayga sii ahaato, waayo baaqi muddo 1 sano ayay dulqaadanaysay. hadda waxay ka dambeeyeen ma dulqaadanayso, inaan fasaxo waa qasab, waayo arrinkaas ayaan aniga usoo laabtay inaan xoreeyo iyada, idinkana ha qasbina. midda kaleete Samradu wuxuu ballan qaadaya inuu guriga sii joogayo intay wax walba ka hagaagayaan. wuxuu dhahayaa hooyoy, adiga wax badan ayaan ku ciilay, wax badan ayaad darteyda u oysay, wax badan ayaad ii walwashay, wax badan ayaad markaasi murugootay, habeena badan ayaad hurdo la-aan noqotay. waxaan ku ballan qaadayaa inaanan sidan ku baxaynin, in muddo aan sii joogay doonaa intii wax walba ka hagaagayaan, qoyskana dib ugu soo laabanayo farxadiisii. markaan garaysto inay wax walba hagaagaan ayaan si tartiiba u bixi doonaa, laakiin amin dhow iyo waqti dhow ma bixi doono, waa ballan aan adiga kaa qaaday hadeer. Mansi way farxaysaa. Bafani waxay leedahay 100% waan hubaa baaqi inaysan ku degdeginin furiinkan, guurkiinana iyo xiriirkiinana ay fursad labaad siinayso, sidoo kaleetana ay ka fikirayso, adigana waa inaad ka fikirtaa midaasi. Samrad wuxuu dhahayaa baaqi ha qasbina, aniga baaqi inay ila noolaato ma doonayso. haddii ay doonayso mar horaan dareemi lahaa markii aan la hadlayay. marka baaqi waxba yaan la qasbin, baaqi meel kale u jeedaa, qalbigeeda meel kale u jeedaa, yaan la qasbin ayuu dhahayaa. Bafani waxay ku adkaysanaysaa inay baaqi ida la hadli doonto. waxay leedahay baaqi anigaa la hadlayo, soo ogaanay go-aankeeda dhabta ah iyo waxa ay doonayso. adiga afkeeda kamaadan maqlin iyadoo leh waad i furaysaa oo furiinka waan ogolahay, kaliya hadal sarbeeb unbaad haysataa, anigaa go-aanka rasmigaa soo ogaanay. markaasuu Samrad caroonaya, si qoyskao dhan ayuu u digaya. wuxuu dhahayaa dhammaantiin si fiican ii dhegeysta, qofkii isku daya baaqi inuu ku qancayo xiriirkeena, haddaba waxaad ogaataan haddii aan arrinkaasi ogaado inaan gurigan ka tagayo, dib dambana uma soo laabanayo. baaqi qof qasbi karta ma lahan, iyada kaskeeda ayay go-aankeeda ku ogolaan kartaa xiriirkeena inuu sii jiro ama inuu burburo, laakiin qof ku qancin karta ma lahan ama ku qasbi karta ma lahan. ma doonay in la qasbo. sidaas ayuu Samrad dhahayaa. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii Firaad ahaa wuu jiifaa. Sayne waxay isku dayeysay inay wax siiso oo cuntada ay siisay, isagana waa diidanaa. gacanteedii ayuu iska tuuray ilaa saxankii uu dhulka kuga dhaca. markuu saxankii dhulka uga dhaca, gabadhiisa ay ahayd. Saye waxay leedahay waxaan kaa doonay inaad raashinka cuntid, sidoo kaleetana adigoo sidan ah ha bixin. laakiin Firaad uu diidayo. wuxuu dhahayaa adigu mar walba maxaad nolosheeda usoo faragashataa, aniga soo kuma dhihin iga leexo, noloshaada raaco, waxbarashadaada iyo adiga nafsadaada ku mashquulso kuma dhihin. maxay tahay naxariistan aad ii muujinaysid? iga leexo dhahayaa, naxariistaada uma baahni, ixsaan ha ii sameynin, waxba ha ii qabanin, iga leexo dhahayaa. isagoo weli xanaaq muujinayo ayuu goobtii ka dhaqaaqaya. gabadhiisa ay ahayd aad bay u niyad jabaysaa. waxay ka caroonaysaa falalka cusub uu kula kacayo ninka Firaad ah. waxaan is leedahay dhab ahaantii waxaa ii muuqato Firaad inuusan dooneynin inuu ila sii noolaado, oo uu doonayo inuu iga tago amaba xiriirkeena uu soo gabagabeeyo. sidaas ayaa ii muuqato. anigana waxaan u maleynayay ama aan niyeysanayay cimrigeena inta ka dhiman ani isaga inaan wada noolaano, laakiin taasi suurtagal ma aha.
gabadhiisa ay ahayd aad bay u niyad jabtay. Kaligeed ayaa isla hadlayso, iyadoo markaasi la hadlayso sawirkii aabaheed Kamaal, waxaana leedahay waan ogaatan inay dhacayso, maxaaba aniga hadeer u murugoonaya, anigoo wax walba og ayaan haddana murugoonaya. Qalbigayga waan xakameyn waayey, waan ogaa maalin un Firaad inuu iga fogaan doono, ani isaga inaanan isku waari doonin oo xiriirkeena uu muddo yar ahaan doono waan ogaa. Laakiin saas ay tahay qalbigayga waan xakameyn waayey, waan celin waayey. Haddana muraayadii ayay hor fariisanaysaa, nafsadeedii ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay Firaad markii aan noloshiisii ka baxo maxaa ii dambeyn doona aniga, noloshayda waxa u dambeyn doona marnaba ma garanay haddii Firaad uu iga tago. Dhinaca kaleeto way oynaysay, nafsadeeday la hadlaysa. Waxay leedahay looma baahna inaad oysid saay, waa inaad ad adig muujisaa, waa inaad karti muujisaa, dhoolla caddeyn aad muujisaa, yaan lagaa dareemin murugadaada, xanuunka qalbigaadana waa inaad qarsataa. Waxay is leedahay wax walbo hadeer kugu dhacayo wax kugu cusub oo hadeer lama filan kugu dhacayn ma ahan, waa waxaad horay u ogeyd, waayo Firaad hore wax walba kugu sheegay, waxba hay ka filanin ayuu ku dhahay. saas ay tahayna adiga qalbigaada waad celin weysay. halaasoo dhan nafsadeedii la hadlaysaa. ugu dambeyn haddana waxay isdhehaysaa sababta uu Firaad u cararayo oo u baxsanayo oo uu leeyahay bedel baa laygu sameeyey, talow amay tahay soo laabashada Samrad oo baaqi u masiiray. sidoo kaleetana Samrad markuu soo laabtay ama is dhahay Firaad baaqi ma heli doontid, murugadaasna uu la baxsanayo soo suurtagal ma ahan. sidaasay Firaad saay iska dhaadhacsiinaysaa una malaynaysaa. kadibna iyadoo dhoolla caddeyn been ah oo qosol been iska keentay, murugadeedii iyo xanuunkeediina qarsatay, ayay soo kacaysaa. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Samrad ayaa si weyn oo la talinayay gabadhiisa ay ahayd, waayo iyadoo qolkii kasoo baxday Samrad wuu arkaya. Samrad wuxuu fahmayaa durba saay xanuunkeeda inay qarsanayso, qosol been ahna ay iska keenayso. markaasuu dhahaya maxaa kugu dhacay saay ii sheeg. waxay leedahay waxba iguma dhacin, kaliya waxaan ka fikirayay xanuunka Firaad maadaama uu xanuunsaday, isaga ayaana daryeelayay. sababtoo anigaba markii aan xanuunsado ama marka kaleetaba uu i daryeelaa, aad buuna iga fikiraa, mas-uuliyadeyda ayuuna qaaday. markaasuu Samrad wuxuu dhahayaa waxaad leedahay Firaad uu i daryeelo wuuna iga fikiraa, soo lagama yaabo sabab kaleeta inuu waxaasoo dhan kuugu sameynayo. waxay leedahay sabab kaleeta ma jirto, wuxuu ballan qaaday inuu mas-uuliyadeyda xambaari doono ilaa aan dhakhtar ka noqonayo. aabahii ayuuna ballantaasi ka qaaday, sidoo kaleetana xushmad uu ii hayo ayuu wax walba iigu sameeyaa, wax kaleeta ma jiraan ayay dhahaysaa. Samrad wuxuu dhahayaa anigu wax kalaan dareemay, waxay ila tahay Firaad waxyaabahan uu kuu sameynayay oo dhan inay sabab kaleeta la xiriirto. adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad fikirtid, bal nafsadaada isweydii, maxay tahay dareenkan idinka dhexeeya adigii Firaad ee qarsoon, adigana aad isboojinaysid ood isdhaafsiinaysid, isagana sidaas ayuu sameeyaa. weligaa ma ku fikirtay Firaad inuu noloshiisii hore iska iloobay, sidoo kaleetana uu adiga dareen jacayl kuu hayo? weligaa ma ku fikirtay guurkiina inuusan ahayn kaliya mid heshiis ah, oo uu yahay mid lamaane oo kaleeta uu ka dhexeeyo, guur dhab ah? adigoo mar walba guurkiina waxaad markaasi ku saadaalisaa ama aad ku xukmisaa inuu yahay mid heshiis ku dheehan, sabab la xiriirta hadalkii uu Firaad kugu yiri 1 sano ka hor oo qalbigaadii weli aan ka tirmin. hadalkaas ayaa wax walba ka hor istaagayo. hadalkaas intaad iska iloodid ay noloshii hore, waxaan kuula talin lahaa nolol cusub inaad la bilaabatid Firaad, waayo Firaad indhihiisa ayaa laga dareemayaa iyo habdhaqankiisa, dareenka uu ku hayo. anigana sidaas ayaan kuula talin lahaa. fursad labaad sii guurkan mid heshiis ku dheehan kaliya yuusan ku dhammaanin. waan ku dareemi karaa dareenkaada, Firaadna waan dareemi karaa qalbigiisa wax ku jiro, waa walaalkay. marka arrinkaas ka fikir ayuu dhahayaa baaqi saay. si weyn ayuu ula taliyay gabadhiisa ay ahayd. markaasi saay niyadda waxay ka leedahay talow Samrad waxa uu sheegayay ma runbaa? miyaan iska iloobaa hadalkii 1 sano ka hor uu igu yiri Firaad ee ahaa qalbigayga iyo dhankayga wax jacayl ah ka filanin?
intaa waxaas iska iloobo, nolol cusub ma la bilaabaa Firaad? Xiriir cusub ma la bilaabaa? Anigana ma u sheegtaa wax walba qalbigayga ku jiro? Gabadhiisa ay ahayd oo hadalladaasi ku fikirayso ayay xalqada ku dhammaanaysaa. Waa xalqada maanta ee 283. Waxaan idin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqada Isniinta la daawan doono ee 284 maadaama beri iyo Axad tahay. Axad weeye xalqada cusub ma jirto. Goosgooska waxaana lagu tusayaa Baaqi oo toogaysa ama baryaysa ninkii Firaad ahaa. Waxaa leedahay Firaado, aniga adiga keliyaan ku jeclahay, waxaan doonayaa nolol cusub inaan kula bilaabo. Firaadna wuxuu dhahayaa Baaqi inaad i fahamtid isku day, aniga Saayi ayaan jeclahay, weliba jacaylka Saayi aan u qabo cimrigiisa wuu weynaaday oo gudahayga ayuu kusii weynaanayaa. Sidaas awgeed adiga waxaan kula talin lahaa inaad nolol cusub bilaabatid, weliba aad samrad la bilaabatid. Baaqi way diidaysaa, waxay dhahaysaa inaad i fahamtid isku day, weliba iyadoo gacmaha haysata Firaad. Waxay leedahay Firaado, aniga nolol cusub baan bilaabayaa, laakiin adigaan kula bilaabaya, inaad i fahamtid isku day, la-aantaa ma noolaan kari ayay dhahaysaa, iyadoo weliba aad oohin isaga keenayso. Saayi ayaa meesha imaanaysa, weliba waa maqaayadii kafeega laga cabaayay ay Firaad iyo Baaqi joogeen. Waxayna arkaysaa labadoodii oo isla joogaan, wayna naxaysaa. Goosgooska meeshuu ku dhammaaday. Isniinta inoo balan ah. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.